الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. درسنا لبعض ما أنت وحنكمل بين علامات البلوغ على مدى قال مدى أما إنه روح سوقان قال على مدى اللغو قرن أيو الشيخ حقا كجور رمي رحمه الله تعالى. وغير علامات البلوغ على مدى قال مدى ثلاث صدحوي صدح ذن لبا رجل دمر بوي وذاقان مدنا روح الدمر كابا وقارتاي ثلاث وصدح كو تمام لما يسترن كو لما يستر ما يوي روحي 15 سنة 15 سنة في الذكر في حق الذكر روحي لما كلغا ورمي والانثى دديك لبدaba marka labadooda 15 sano dhameystirmaan ayaa la oranay ruuxaasi waa qaan gaar 15 ruuxu ku qaan gaarayna waxa uu daliishtaan hadith Abdullah ibn Umar oo xulay Abdullah ibn Umar rasuulku waxa uu soo bandhigay waxaan u bandhigay rasuulka dagaalkii Uhud inaan ka qayb galo anigoo 14 jir ah laakiin rasuulku ima ogolaan buu yiri inaan 14 jir ka qayb galo waxaan u bandhigay buu yiri dagaalkii ka ku xigay Khandaq la oran jiray oo da'deedu markaa ay ahayd 15 sano faajazani rasuulku way ogolaaday in dagaalkan ka qayb galo sida ugu culimadu waxay yiraahdeen waa xadka lagu qaydayo ruuxa qaangaadnimadiisa iyo xilligii mukallaf ku noqonayay markay da'diisu inta gaadho weey ay ka qaateen xadiidka والاحتلام وي إنه روح احتلامه بمعنى ما يبيه سكواركو في الذكر في حق الذكر روح اللب يو الأنثى روح الددي ل9 سنين 9 سنة مركو روحا سوكو احتلامه أيا روحا لورانيا نواقان قاده روحا سامي ذكر اللبها هذا أما أنثى واحد ددقها هذا مثلا أنا وحاول الدليل أو الدليشتان علماته قول قال لي وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا وقرت استئذانك عروت ويدي سنيان ددك واوين أنا وسو قالهن يو أنا استرنين ومركا يقاران حلق أو الحلم وعساسه قال الرسول كويل رفع القلم عن 3 صدح باقلنك لغو قريلو بمعنى الدنب يخير له قرمان صدح ذا وحو كداري عن النائم حتى يستيقظ روحي هردي إلا أنت وكسو توسي مركا وكسو توسو أيو حالة وكجد بيوحي وكوها الله يوحي والسماء بلو قري وعن الصبي حتى يحترم المه يرانا قالن كيا لغو قري لي حتى واحتلام وكايمان أيو مركا حالة وقالو أيو نقري قف مكلفة والحيض بوير حيض كيوي على مذاها قنقاني مذو في الأنثى روحي الدديق حالة وصوناني ل9 سنين 9 سنة markay gaadho taasina waxay u gaartay ruuxa dumara oo labada horena waxa wadaaga rag iyo dumarba masaladana waxa uu daliila xadiidka soo warinaysa Aisha radhiyallahu anha oo nabigu wuxuu yiri kaleey salaatu salaam la yaqbalu Allahu salaata haa'id ilaahay kama aqbalayo salaad ruux dumara oo haa'ida ilaahay salaad ka aqbali maayo calaamatul bulugh calaamadaha qaangaadnimadu 3 saddex weey تمام 15 سنة ولما يسترن كولما يسترمن وهي 15 سنة في الذكر أي في حق الذكر الروح اللمر كلا يجي والأنثى روح الدديك والاحتلام احتلام كوي في الذكر روح الدديك حالة وصوناضية والأنثى روحي الدديك يروحي لبلبضبا ل9 سنين 9 سنة والحيض حيض كوي في الأنثى روح الدديك وصوناضي ل9 سنين 9 سنة مركاي قال شروط الاستجمار حقا waxaa kaga waramaya dhagaxan lagu istijooda inay banaan tahay laakiin shuruud ay ku banaan tahay marka shuruudii dhagaxaanta ay ku ansaxayeen oo dhagaxaas uu noqonayo mid shaqadiisu gutay ayuu xaqan kaga hadlaya wuxuu yiri shuruudu ijzaa'il xajari shuruuda dhagaxa uu ku gudaya oo dhagaxii lagu istijoon karaa 8 شرط 6 شرط وي
sideeda shardi marka laga helo dhagaxii ayuu noqonayaa dhagaxu mid lagu istijoon karo an yakuna waa inuu ahaado bi3 ahjaar saddex dhagax waa inuu ahaado arintana waxaa tusiyay xadiiثu Salmaan oo wuxuu leeyahay Salmaan markii lagu yiri nabigu shay walba waa idin baray ayuu rahaa rasuulku waana baray hatta waxa uu na baray marka muxaajo gudanayno inaanu xaajada ama saxaro ama kaadi aanan ula jeedsan dhinaca qiblada saasoo kale wuxuu na baray rasuulku uu yiri inaanu ku istinjoon saddex dhagax wax ka yar marka waxa laga qaadanayaa in saddexda dhagax ay sharti tahay waxaan saddex dhagax gaarsiisnayna istinjaa ku gudimayso an yakuna waa inay ahaada dhagaxaantu bi3 ahjaar saddex dhagax waa inay ahaadaan wa an yunaqiya waa shardiga labaad waa inuu nadiifinayo dhagaxaasi almahalla meeshii najaasadu ay ka soo baxday waa inuu dahaarinayo oo meeshuu dahaaro uu ka dhigayo waayo waxay shardiga uga dhigan waayo qasdiga ujeedada dhagaxan loo isticmaalayaaba waa inuu wax daahirinayo haddaanu meeshii nadiifinayna mid shaqadiisi gutay maaha ولا يجف وينانو انجين النجس نجاسدي ويناني انجين هذه نجاسدي قفك يكون قلاشو waxa oranaya marka dhagax goyn maaye waxa goynaya waa biyo marka waa inuu biyo raadsado oo dhagaxi ka gudi maayo wala yantaqila wa inaanay gudgudbin oo najaasadaasi inaanay ka gudbin meesha ay ka soo baxday wala yadra alayhi aakhara wa inaanay najaasad kale aanay ku soo darin oo qofka aanay ku soo darin مسألة نحو دليشنا الحديث كعبد الله بن مسعود والنبي أيوه يمد نبي حاجة بدنيا نبي وحو أمرين صدح دقح وكانوا عبد الله بن مسعود وحي صدح دقح لما دقح عن صاهري ملكي صدحاتنا وحمد صادق السالة علي رسول كل بعض دقح وقاطي صالة نواه طوري ووحوير هذا الركس بمعنى وين نجاس سيدا إمام البخاري والسوبريني marka najaasa kale in qofka ku soo darido lama ogola waa in najaasadiisu qulaatay noqoto wala yujaawizu waa inaan dhaafin safhatahu meesha ay ka soo baxday ama inta najaasadu ay ku eegtahay waa inaan dhinac kale jirkiisa aan uga dhaafin iyo waxa shafatahu hadii waxa ka soo baxay kaadu yahayna waa inaan meeshii ma fooq al-khitaan inta gudniinku ku dhacaynta ka sareysa waa inaan dhaafin wala yusibahu ma'u biyo waa inaan asiibin oo taa tusaaleed waxa weey qofkiyo biyo isticmaalaya ay biyo ka kala go'aan meeshii najaasadii kama meelin marka dhagax ma isticmaalaya waa inuu biyo kala u raadsado oo biyaha uu kaga sii saaro wa anta kuna waa inay ahaadaan al-ahjaaru dhagaxaantu waa inay ahaadaan daahiratan wa daahira waa inay ahaadaan marka sideeda shardi ayaa loo eegayaa dhagaxa markaas uu noqonaya dhagax mid meeshii daahirinaya فرائض الوضوء حكم وحو كغا ورميا فرالذي ويسدا بمعنى شروطي يا اركانتي ويسدا اي حكم كغا هادلي فروض الوضوء فرالذي ويسد 6 نحوي الاول كوكوبات النيه وي ورسولك حديثكي وسورينيه بدليل عمر الخطاب مسلم نورينيه بخاري با ونبي ورينا من الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وحو الباء وعمل وحو كو انصحي نيده قف البابنا وحو لي وحو نيوده الثاني فرض اللبات غسل الوجه وجهك وين لميرو ووحا لغا دليشنا قولك الله يري فاغسلوا وجوهكم وجيهنا ميرا ايا الدليل الثالث كالصدحاتنا غسل اليدين لبادي قعمد وين لميرو مع المرفقين يدو لا ميريو سحولada وسحولada waxay la socdaan inta la meerayo waxaana u daliila qowlka alla yiri waydiyakum ila almarafiq gacmiina meera illa suxulada laga gaarayo arabi'u masalada afaraad ama faralka afaraad masxu shay in la masxo way shaygaas oo min raas madaxa kamida waxay u daliishteen qowlka alla yiri wamsahu bi ru'usikum madaxyadiina meera oo in madaxa barkii la meerayo in kamida la meerayo waxay ka daliishteen baada bi ru'usikum ku jirta waxay yiraahdeen tabciidi ay faa'iideynaysaa in madaxa barkii la meerayo ay faa'iideynaysaa baaduna tabciidi ay faa'iideysaa laakiin culimada luqada ku qabsado yiri ba tabciidi faa'iideysaa luqada carabida kuma soo aroorin marka lil ilsaaq xiriirin bay faa'iideynaysaa sida saxdaana waa madaxa dhan la masaxo oo laga bilaabo fooda ila laga gaaray qadaadka hadana dib loo soo celiyo oo foodi lagu soo celiyo dhagahna la masaxo sidaasana ka sugnaatay rasuulka kaleey salaatu wasalaam الخامس كشنادنا غسل الرجلين
إلا ما يدل لبادي اللغات مع الكعبين iyadoo lala meedayo kuraamaha oo kuraamo inta la meedayo kan bidihiin oo Ilaahay baa yiri warjulakum ila al-ka'bayn lugihiina meeda ila quraanta ad ka gaadhaysaan asadisu fardiga lixaadna at-tartiibu waa la tartiibiyo weey oo sida in loo tartiibiyo way aayada weysada ka waramaysa maayida ku jirta sidaas oo tartiibisay wajiga bay ka bilowday gacmii bay ku xigsiisay madaxii bay u dambeeyay ku xigsiisay lugihiina u dambeeyay marka sidaas aan ahayn looma meeri karo qofkana aduu kala horeysanaysana lugaha ka soo bilaabo dusha uu soo gaarsiiyo weysadaas tartiibteeda baa ka maqan weysadaasina ka ansiximayso wallahu a'lam sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira